السلام عليكم ويلكم رمضان مبارك asxaabteeda qaaliga dhammaantiin dunida meel walba ka joogtaan waxaan rajeen caafimaad iyo farxad inaan ku nooshiin soo asxaabta dhammaantiin ugu xisabtid ku soo dhawaada familka subscribe karin ciisin gambaleelka risku yaala riix mar walba video aan soo geli si dhaqso ah teeshaan marka asxaabta maanta waxaan sameynayaa rooti iyo hilib aad u macaan badan oo afurka ka dhigi kartid oo zaaid u macaan badan marka insha Allah recipe-gan oo aad u sahlan sidaan u sameynaa ayaan idin videogan waxaan idin rootiga hilibka sida loo sameynaa marka sidaas la socdo insha Allah asxaabta daawasho wacan soo hadda baaquligaas waxaan ku shubay hal bakeeri oo biyo ah kadibna waxaan ku darayaa saliid zeytuun hal qaado saliidii adiga haysta ayaa ku darsan kartaa laazima zeytuun inaad ku darsatid kadibna waxaan ku darayaa 3 qaado oo khamiir ah qaadadan isticmaala qaado yar waaye marka 3 qaado oo khamiir ayaan ku daray kadibna waxaan ku darayaa 2 qaado yar oo caano booro ah marka asxaabta biyaha aan ku daray biyo caadi ayaan ku daray sidaas la socda kadibna waxaan ku daraa hal qaado sokor qaadada weyn ayaan ku daraa oo sokor ah hal qaado yar oo cusbo ayaan ku daraa cusbana qiyaaska ku darso inta adiga afkaaga ku qaadaysa ayaa ku xiran cusbaha marka intaas ayaan isku qasay kadibna waxaan ku darayaa hal bakeeri biyo kale marka 2 bakeeri oo biyo ayaan ku daray kadibna waxaan ku darayaa burkana 5 bakeeri waaye marka rootiga inta aan sameynayo 5 bakeeri bur ayaan ku sameynayaa soo hadda burka waan ku shubay kadibna si fiican ayaan u cajimayaa burka iyo khamiirka si fiican inay isku dhexgalaan marka insha Allah hadaa biyo u baahdana waan idin biyaha kale aan ku dari doono soo asxaabta waa arkaysiin marka rootiga biyo ayuu u baahan yahay biyo ayaan ku darayaa hal bakeeri kale biyo ayaan isticmaalaa marka hadda haaf ayaan ku daray marka 2 bakeeri bar oo biyo ayaan joogaa kadibna waan sii sugaa waan sii fiirinayaa marka cajimo kadibna sidaas ayaad ku ogaanaysaa hadda biyo ku yaraa marka nuskii bakeeri kale biyo ayaan ku daray soo 3 bakeeri biyo ayaan isticmaalay asxaabta 5 bakeeri oo bur ayaan qasay marka 3 bakeeri biyo ayaan ku qasay sidaas la socda burkana qamiir ma la rabo inuu wax noqdo rootiga adeeg rootiga inuu jileec noqdo waa marka insha Allah iska hubi sidaan inaad ka dhigtid rootiga si rootiga jileec kugu noqdo hadaa rootiga adeeg ka dhigtid rootiga adeeg ayuu ku noqonaa marka hadaa laakiin jileec u qastid sida saan u soft yahay marka rootigaagana si fiican ayuu kugu toosayaa marka asxaabta waa arkaysiin rootiga si fiican aan u cajimay aad ayuu soft u noqday jileec zaaid waay marka wax yar bur ayaa korkiisa sidaas ugu shubay arkaysiin marka rootiga diyaar waa hadda asxaabta waa arkaysiin sida uu jilicsan yahay sidaas ayaa la rabaa rootiga adeeg ka dhigan hadaa adeeg ka dhigtid rootigaaga adeeg ayuu ku noqonaa marka iska hubi in rootiga saan jileec u noqdo soo asxaabta rootiga dabool ayaan saaray ilaa 30 daqiiqo ayaan meel dhigayaa hadda waxyaabaha kale ayaan sameynayaa inta 30 daqiiqo rootiga nooga khamiira hilibka ayaan diyaarinayaa marka sidaas la socdo soo asxaabta saxankan waxa igu jira hilib waaye hilibka saxankan igu jiran hilib oo qafiif waaye alwaax oo steak lagu garaacay ayaan ku garaacay si qafiif aan ugu dhigo waa arkaysiin hilibka culeys dhan ma aha qafiif zaaid waa hilibka because marka aan sameynaa ama aan shiilaayo si dhaqso ayuu u bislaanayaa marka sidaas darteed hilibka inaan si fiican sidaas ayaan u jilciyay si culeys ma ka dhigin marka hilibkani sidaas ayaan ku sameeyay asxaabta hadda waxaa baaquligaas igu jira bur waaye kadibna burkaas waxaan ku darayaa cusbana qiyaaska ku darso kadibna waxaan ku darayaa wax yar oo filfil midoob ah and then waxaan ku darayaa basbaaska oo gaduudka chili flakes oo la soo jajabiyay ayaan ku daray kadibna hal bakeeri biyo ayaan ku qasayaa adiga burka inta qasanaysa ayaa ku xiran hadaa bur badan qasanaysa biyaha ina u badisid waa marka aniga burka aan qasay hal bakeeri bur waaye marka hal bakeeri oo biyo ayaan ku qasay hadaa biyo u baahantid waa ku dari kartaa laazim ah inaa biyaha halkaas bakeeri la inaa ku qastid marka halkaas bakeeri biyo ayaan ku daray hadaa biyo kale u baahdana waan ku sii darayaa marka asxaabta waa arkaysiin si aan u jilciyo culeys ma qafiifna ma aha marka hal bakeeri wax yar oo biyo ayaan ku qasay burka soo burkana diyaar waa marka hadda sida kale aan u sameynaa ayaan idin marka waxaan soo qaadayaa hilibkii aan qafiifka ka dhigay sidaas ayaan u dhaxgelinayaa burka dhexdeeda asxaabta arkaysiin hilibka sida qafiif u yahay sidaas ayaa la rabaa hilibka culeys ma la rabo
burka dhexdeeda asxaabta sidaas ayaan ugu qasaa hilibka dhan kadibna meel aan iska dhigay ilaa 10 daqiiqo waxaan u laabanaya rootigii oo 30 daqiiqo meel aan dhigay marka rootigeeni ayaan foornaha gelinaya kadib ayaa hilibka sii dubaya waan soo laabanaya marka asxaabta 30 daqiiqo kadib waaye rootiga cajiinka meesha noo maraya ayaan fiirinaya waa arkaysin asxaabta cajiinkeena rootiga diyaar waaye cajiinkeena rootigan si fiican ayuu u qamiir maasha Allah soo rootigeeni diyaar waaye wax yariis bur ayaa cajiinka oo rootiga ayaa sidaas ugu shubay burka si aan cajiinka weelka aan ugu fujiyo marka wax yariis bur ayaan isticmaalay geesaha ayaan ku shubay kadibna cajiinka sidaas ayaan u fujinayaa soo hadda gacanta wax yariis oo bur ayaan mariyay kadibna sidaas ayaan u jarjarayaa qiyaaskaas ayaan ka dhigayaa rootiga zaid yar ugu dhigin because haday yareysid rootiga yar ayuu ku noqonayaa kadibna si fiican uu soo baxay rootiga marka insha Allah rootiga qiyaas fiican ka dhig gooskiisa marka goonaysid marka sidaas cabirkaas ayaa fiican qiyaaskaas ka dhigo marka asxaabta cajiinka dhan sidaas ayaa gacanta ugu jarjarayaa gooskaas ayaan ka dhigayaa kadibna insha Allah sida kale aan u sameynaa ayaan tusinayaa marka asxaabta kulli waan googooyay diyaar waaye cabirkaas ayaan ka dhigay waa arkaysiin gooska sida aan ka dhigay qiyaaskaas ayaan ka dhigay marka wax yariis saliid ayaan gacmaha marsanayaa kadibna rootiga ayaan soo qaaday sidaas ayaa gacanta ugu wareejinayaa si fiican u sameeyay rootiga marka sameysanaysid sidaas gacanta ugu wareeji kadibna geesaha isku keen marka wareejisid marka arkaysiin asxaabta wax yariis dheer ayaan ka dhigay markaan ka dhigay kadibna geesaha ayaan isku keenay kadibna korkiisa sidaas ayaan u liisheeyay marka sidaas ayaan ka dhigay zaid ayuu u sahalsan yahay rootiga sameyskiisa marka insha Allah I hope adinkana inaad tijaabisiin aad uga heli doontiin rootigan aad ayuu macaan badan yahay aadna u sahalsan yahay sameyskiisa waqti badan ma ka qaadanayso marka waa arkaysiin asxaabta gacanta sidaas ayaan ugu riixay marka aan wareejiyay kadibna geesaha sidaas ayaan isku keenay qiyaaskaas ayaan ka dhigay soo gacmaha saliida waan sii wadayaa saliida marka marsid dhaqsi ayuu ku sameysmanayaa rootiga hadaa gacmahaaga saliid marinin rootiga si fiican ma kuuga sameysmanaa because rootiga wuu jilcan yahay marka gacmaha wuu ku dhigdhigayaa laakiin hadaa gacmaha saliid iska marisid si fiican ayaad u sameyn kartaa rootiga marka soo asxaabta waa arkaysiin markaa saxanka saaran kadibna geesaha sidaas ayaan isku keenayaa rootiga marka sidaas ayaan ku wadayaa dhammaan inta kale ii dhiman sidaas ayaan u sameynayaa gacmaha saliid iska mari kadibna markaa marisidna sidaas u dheereey rootiga markuu dheer noqdana geesaha isku keen korna liisha ka dhig kadibna rootigaaga dhan hal nooc ayuu ku noqonayaa sida dhaqsin aad u sameysan kartaa marka adiga saan u sameysid wax inaad firisid iyo waxaas dhan ma loo baahan marka gacmahaaga gacmahaaga ayaad ku sameynaysaa sidaas and then rootigaaga diyaar ayuu ku noqonayaa marka asxaabta waa arkaysiin sidaas ayaan ku waday rootiga dhan sidaas ayaan u sameeyay qaybtii kalena waan sameeyay saxankan 2 saxan rooti ayaan sameeyay rootigeeni diyaar waa marka hadda waxaan sameynayaa mindiga ayaan soo qaadayaa marka mindiga soo qaado kadibna rootiga ayaa dhexda sidaas ugu jarayaa waa arkaysiin rootiga dhexdeeda ayaan ku jarayaa sidaas ayaan sameynayaa ilaa hoos ma jarin asxaabta kor ayaan ka jara bas dhexdaas kor mindiga saas ayaan u geliyay kadibna kulli sidaas ayaan u sameynayaa markaan sameeyay kadibna insha Allah waan tusinayaa rootiga asxaabta waa arkaysiin qamiirka anigoo aanba wax sugin waqti aan suginba inta aan ka sameynaa rootiga way sii qamiireysay marka waa arkaysiin rootiga maasha Allah waa qamiiray si fiican ayuu u fuuray marka rootigeeni diyaar waa had waqtiba ma u baahan foornaha le ayaan gelinayaa inaan dhigadan ma u baahan marka qamiirkaaga ayaa ku xiran soo asxaabta sidaas ayaan u jajaray diyaar waaye rootiga dhan 2 saxan ayaan sameeyay diyaar waaye marka hadda foornaha ayaan gelinayaa foornaha kuleelkiisa waxaan ka dhigayaa 180 ilaa 25 daqiiqo ayaan ku dubayaa marka asxaabta inta 25 daqiiqaas oo rootiga noogu dubmaa had hilibkeena ayaan dubaneynaa marka hadda taawada ayaan dabka saaray kadibna saliid ayaan ku shubayaa saliidna qiyaas ku shub saliida ka yareenin aan ku badinin qiyaas ayaa la rabaa marka oo saliida ku laatane waxaan ku ridayaa hilibkii aan burka sidaas u dhaxgeliyay marka asxaabta saliid waa arkaysiin kuleel zaid ma aha qabow zaid ma dhexdhexaad ayaa la rabaa saliid marka aad hilibka ku ridaysid
Markaa kuleel zaid aad ka dhigtid hilibka markaa ku ridid dhaqso ayuu hilib gaduudanaya saas ma la rabo marka waxaa la rabaa hilibka inuu waqti qaato si gudihiisana u bislaado si fiican inuu u jilcado hilibka biseel inuu noqdo waa marka waqti inaad siisid waa marka dabka xoog aad zaid ka dhigtid waqti ma qaadanayso marka asxaabta waa arkaysiin dhinaca hoos wuu bislaaday marka dhinaca kale ayaan u gedinayaa soo asxaabta markaa sameysanaysin insha Allah saliid iska ilaali because asxaabta waa arkaysiin saliida zaid ayay u boodaysaa marka saliidaas iska ilaali inay korka kugu soo boodin ama korka inay kugu soo dhicin insha Allah iska ilaali saliida marka adinkana sameysanaysin asxaabta marka dhinaca kale ayaan u gedinayaa dhinaca kale waqti ayaan siinayaa inay tartiib uu ku bislaado hilibka si fiican u bislaado gudihiisa marka waqti ayaan siinayaa insha Allah markaan soo dhameeyane waan i tusi doonaa soo asxaabta hilibkeeni diyaar waaye labada dhinac si fiican ayaan u bisleeyay waqti badan ayaan siiyay inuu ku bislaado dabkana xoog zaid ma ka dhigin qiyaas ayaan ka dhigay marka sidaas ayaa la rabaa si hilibka dhan si fiican u bislaado soo hadda saliid ayaan ka saarayaa saxankan waxa ayaan saaray tiish xaanshadaas ayaan saaray sida oo saliid dhan si fiican ay ugu baxdo marka sidaas ayaan saxanka u saarayaa saxanka aan saaran tiish ayaan saaray si saliid dhan ugu baxo marka asxaabta waa arkaysiin intaan waan sii dubay marka intii kale ayaan sii dhameystirayaa sidii ayaan sameynayaa saliidii hadan hilibkii ayaan ku dhex ridayaa oo burka aan dhex geliyay marka sidaas ayaan u dhex geliyay marka waan sii sugayaa soo asxaabta waa arkaysiin hilibka sidaas ayuu u bislaanayaa markaan dhameeyo insha Allah ayaan i tusinayaa soo asxaabta rootigeena 25 daqiiqo foornahan geliyay diyaar waayo waan soo diyaariyay rootiga hilibkeenina almost diyaar waan sii dubay marka waa kay rootiga sidaas ayaan u sameeyay homemade bread aad ayuu u macaan badan yahay guriga markaa rootiga ka samaystid aadna u sahalsan yahay marka asxaabta waa kay rootigeena diyaar waaye hilibkana waan soo diyaariyay diyaar waaye hilibka markaa sidaan loo sameeyay zaid ayuu u macaan badan yahay insha Allah adinkana markaa tijaabisin aad arki doontiin macaankiisa markaa hilibka sidaan u samaysatid aad ayuu u sahalsan yahay cafur oo macaan badan ayaa kaaga soo baxaya hadaa sidaan u samaysatid rootigan aad ayuu u sahalsan yahay guriga markaa laga sameynayo rooti macaan badan oo gacmaha ku samaysatay aad cunaysaa marka insha Allah asxaabta waxaan rajeynayaa adinkan inaan ka faa'iideyn recipe-gan oo aad sahalsan hadaa videogan ka hesheen videogan like saar si share gareysii walaalaaga asxaabtaada iyo arkaan ay ka faa'iidaan asxaabta waxay rabtid aad ku cuni kartaa daarabtid dalac bilaash aad u sameysan kartaa daarabtidna salad ayaad ku cuni kartaa ama wixii adiga jeceshid ayaa dhex gashi kartaa rootigaas kadibna hilibka sidaas ayaad u dhex gelinaysaa so yummy and delicious I hope insha Allah dhamaantiin inaan ka faa'iideyn recipe-gan hadaa videogan ka hesheen videogan like saar si share gareysii walaalaaga asxaabtaada arkaan ay ka faa'iidaan hadaa maanta nagu cusubtidna fadlan ku soo dhawaad familka subscribe saar subscribe-ka dhinacaysan gambaleelka riiska yaala riix mar wal video aan soo gelisay dhaqsaataysan soo asxaabteeda qaaliga waa ka videogeena maanta intaas ayuu ka ekyahay rootiga hilibka aan sameeyay until then insha Allah next video ismaqli doonaa with new recipe dhamaantiina khayr badan aan idhaafadunay meel walba ka joogtaan and as always ducadiigu xasuusta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh